kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami waxa uu kaga gudoomay shirkadda daabacadda buugaagta Hema 300 oo buug oo kamid ah daabacadii buugga xeelada dagaalka oo qoray isla markaasina turjumay Aadan Xasan Aadan Balalow ugu horeeyna madashaasi waxa la kooban ka jeediyay faahfaahin ka bixiyay buuggan Cabdinaasir Axmed Ibrahim oo kamid ahaa qabanqaabiyaasha buuggaasi Xaamud Khayr Yuusuf oo kamid ah saraakiisha shirkadda daabacadda buugaagta Hema ayaa isna tilmaamay in ay ugu tala galeen deeqdan inay gaarsiiyaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xarunta darar weyne ee tababarka ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu maanta u joognaa wasaaradda gaashaandhigga inaanu ku wareejino deeq buug ahayd oo aanu kaga dhawaaqnay maalintii buugga la soo bandhigay ee 12 bishii buugta qayb kamid ah markii hore ayaanu halkaas ku gudoonsiinay marka qaybtii ka dhinayd ayaanu maanta wadnaa waxa kale farxad noo ah in hal buug oo ama buug anfacaya oo ka anfacaya ciidanka qalabka sida Soomaaliland aqoontooda ciidan iyo taatikada dagaalka iyo waxyaabo noocaas ah in ay maalgeliso Hema qaybtii ay ugu deeqday kuliyadda darar weyne qaybtii harsanayd buugtana maanta aan halka ku wareejinayno wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Cabdiraxmaan Suldaan Xirsi Qani oo madashaasi ka hadlay ayaa isna tilmaamay in ay si diiran u soo dhaweynayaan deeqdaasi wax weyn ay ka dari doonto xeeladaha dhinaca ciidanka marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa Hema Books oo noo hirgelisay inay daabacdo buugaagtan kuna ballan qaaday inay ugu deeqdo wasaaradda gaashaandhigga khaasatan ciidanka qaranka ee fadhigiisu yahay darar weyne aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa dhalinyarada ka shaqeysay iyo dhammaan inta kale naga maqan ee hawshan qabatay waa buug caan ah oo adduunka oo dhan laga akhriyo Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa isna tilmaamay in buugga xirfadaha dagaalku uu xambaarsan macluumaad dheeraad ah isla markaasina ciidan ahaan ay ka faa'iideysan doonaan akhriskiisa marka horeysa idinka waan soo dhaweynaynaa martiba noo tiino askarta kaliya saraakiisha naftoodu waa nafli iyaba la filayo runtii inay waxaan akhristaan oo ka faa'iideystaan waa ilaa inamada ugu horeeyo oo military oo la qoro iyo dadka markaa u banaan baxay oo ciidadaa jooga oo akhri kara deeloon wada garanayna oo wixii maskaxda ku qaban kara dhulkan buuqu iska jiro oo ninka loo baahanayo saaxiibkii u yeedhayo markuu wuxuu biisgareeyo waayo marka halkan lama haleelayo laakiin dadka cadet officerska oo kale way dadka ay faa'iidada ugu weyn qaadanaya marka la siiyo nin walba